ugu horeyn madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Marwa Sucaad Ahmed Farax madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Mudane Cabdi Maxamed Cabdi mareeyaha hoyga agoonta ee magaalada Jigjiga marti sharafta ka soo qayb gashay iyo mas'uuliyiinta deegaanka odayaal dhaqameedka garaadada salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka dhalinyarada ay waalid tireen ururka xaq jirka ee nabadiidka UBO waalidiinta iyo walaalahayga ku waxyeeloobay hagardaamooyinka ay u geysanayeen nabadiidka UBO oo waqti xadarkan nagula sugan hoolka kuwa ku kala baasan deegaanka mudanayaal iyo marwooyin marti sharafta qaaliga maanta ay taariikhdu ku hasaysan tahay 5 Hidhaar oo maalin loo asteeyay in markasta la xuso laguna soo xasuusto hagardaamooyinkii iyo dhibaatooyinkii isdaba joogga ahaa ee ururka nabadiidka UBO ay ka geysan jireen shacabkeena deegaankeena Soomaalida Ethiopia waxaan ugu tacsiyeenaynaa dhammaan eheladii qaraabadii shakhsiyaadkii ay nabadiidku waxyeeleeyeen kuwii ku geeriyooday iyo kuwa waqti xadarkan lixaad kale ay joogeen taba iyo daayarta ubaxa ah ee uu soo halgamay gacan qabtay hoygu sameeyay wax baray caafimaadkoodii cunadoodii cabitaankoodii intaba u dayactiray xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Ethiopia waxaan leenahay maanta ma ahan maalin aan iloobi doono hadaynu shacabka deegaanka waana midaan xasuunaan doono qulubtanada ka hari doonin qof kasto u dhashay deegaanka Soomaalida Ethiopia waa og yahay wuuna xasuusan yahay dhibaatooyinkii ay UBO ka geysanaysay deegaanka mid ay gacan ka goyso mid ay lug ka goyso mid ay raganimadiisiiba ay tirto oy tarankii ninka ragga uu ku faanayay ka goyso gabadhay gacan ka goyso dee haddaan dhaho waan xusayaa shakhsiyaad kow iyo laba haddii la dhaho laguma soo koobi karayo hortiina waan keeni doonaa waad arki doontaan wax aan ku jirin bilaadanimada xuquuqinsaanka iyo diintuba ayna ogoleen iyo dastuurkuba inay u geystaan shacabkii deegaanka waan wada ogsoonahay waana xasuunaan doonaa waxaan iyagana mar rabaana iloobi doonin ciidamadayada qaaliga hay'adayada noogu soo gurmaday dhibaatadii nabadiidka UBO ee Liibooliska waxay ahaan lahayd mid socota taasi haddayna jiri lahayn hogaamin ruux isbile aragti shacab leh ka danqanaysa dhibaatada loo geysanayay shacabka deegaanka hogaaminta ugu sareysa xukuumadda deegaankana waan ugu hambalyeynaa waan uga mahadcelinayaa sida ay uga danqadeen iyo ciidanka yaga ah ciidan shacab noqday kabii shacabka isaga dhigay dhammaan dhibaatadii ay maleegaysay nabadiidka UBO cidhibta mariyay shakhsiyaadka maanta aan awood lahayn ee haray ee qalbi ruuska ah ee kaliya caloosha ka buka xitaa afka ay ka dhamaatay afaan wax ka dhigi karin iyagana markasta waan cambaaraynaynaa waana la halgamaynaa waana la dagaalamayna hadaan shacabka deegaanka mudanayaal iyo marwooyin marti sharafta qaaliga maanta 5 Hidhaar oo guud ahaanba deegaankeena laga xusayo inaguna aan ku xusayno goliyada murtida iyo madadaalada iyo shirarka khaaska ah ee hoolkaysid Maxamed Cabdullaahi Xasan munaasabadeeni aynu dhexda kaga jiraa waxaan dib u eegayaa kaalmihii suugaanta ay ku xusayeen fanaaniinta deegaanku markasta ay ku dareensiinayeen shacabkeena daayarteena odayaasheena garaadadeena salaadiinteena cuqaasheena iyo waxgaradkeena hooyooyinkeena iyo waliba mas'uuliyiinteena sida iyaguna dhankooda uga xun yihiin dhibaatooyinka nabadiidka UBO sidoo kale daayarta ay waalid tireen nabadiidka UBO iyagana waxaan leeyahay maanta waxa idin ag taagan hogaamintiinii oo midaysan ku faraxsan isla markaana ka xun dhibaatada lidin geystay ilaa intay nool yihiin idin garab taagnaan doono ahna shakhsiyaadka iyo kabii shacabka idin ka soo dhaxbay idinka mudanayaal iyo marwooyin aad ay aad u mahadsantiin waxaan idinku celinayaa kooxii fanka deegaanka munaasabadeena inay noo socon doontaa waana u tacsiinaa qof kasta oo dhibaato ka soo gaadhay nabadiidka UBO iyo dhammaan shacabka deegaanka iyo xisbigaba
badhaadheen haddii uu liyuu bilan وبمعنى تدوينها haddii u badbaadada beegsan geerida maanta lama badhaadheen bulshoy lama badhaadheen hadduu barbar ka taagnay duhur habeenimo subaxnimo fariidada samalaguma beermeen samo laguma beermeen samo laguma beermeen laguma beermeen hadduu barbar ka taagnay barqin duhur habeenimo subaxnimo fariidada samalaguma beermeen samo laguma beermeen samo laguma beermeen laguma beermeen baaqiga gudoomo bisha curashadoodiyo sanadkay ku beegnay dahab lagu qoro haloo soo banaanbaxo bulshaduna siday tidhi bulalayda looriyo bulalayda looriyo bulalayda looriyo bulalayda looriyo baaqiga gudoomo bisha curashadoodiyo sanadkay ku beegnay dahab lagu qoro haloo soo banaanbaxo bulshaduna siday tidhi bulalayda looriyo bulalayda looriyo bulalayda looriyo bulalayda looriyo shoyadi damboga dhaysta lagu baanan dhimashada maanta lama bidhaameen way bulshoy lama bidhaameen shoyadi damboga dhaysta lagu baanan dhimashada maanta lama bidhaameen way bulshoy lama bidhaameen haddii una badikiyo samaynin biyo gelin شعور شلوديو سنكي كبيني ذهب الله قرار
curashadoodiyo sanadkaygu beegnay bulshaduna siday tidhi bulalayda looriyo curashadoodiyo sanadkaygu beegnay bulshaduna siday tidhi bulalayda looriyo munaasabadeennii oonu weli dhexda kaga jiro annagoo ka xun ka tiiraanyoonayna dhibaatooyinka nabadiyadka u bagaysteen ayaan jeclahay si toos in aan u raaco jadwalkayga guda gala munaasabadda waxaan jeclahay inaan hortiina soo istaajiyo da'yartii iyo ubixii ay waalid tireen ururka nabadiyadka ubbo ee ay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya uga gurmatay u samaysay hoy iyo goobo ay wax ku bartaan lagu dayactiro lagaga warhayo entire life inta nolosha ka dhimanna goob ay wax ka baranayaan weligoodna ay joogi doonaan markastana ay xukuumaddu ku garab taagan tahay si ay uga soo bixi lahaayeen dad wax bartay oo deegaankooda wax la qaybsada isla markaana hormariya ardayda hoyga agoonta ee magaalada Jigjiga ayaan jeclahay hortiina soo istaajiyo oo iyaguna markooda xusaan dhibaatadii ay u geysteen ururka nabadiyadka ubbo isla markaana ay halkan ka cadeeyaan sida ay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ugu gurmatay halgankii dheer ay la gashay in aysan dareensiinin in booska waalidkoodu maqnaan yahay waanu ka xunahay markastana waan xusuusnaan doonaa nabadiyadka ubbo dhibaatooyinka deegaanka ka geysteen mana ahan midaan iloobi doono ubaxaan quruxda badan ee hortiina taagan waxaa waalid tiray ururka nabadiyadka ubbo oon marnaba ka fikiraynin dhibaatada ay leedahay waalidkaadu weydo ama waalidkaa hortaada lagu dilo adiga oo saqiir ama sabi ah waana ka xunahay waana cambaaraynaynaa ururka nabadiyadka ubbo iyo dhammaan qof kasta oo taageersan fikirkiisa waana la halgamaynaa haddaanay shacabka deegaanka waxaan jecelahay inaan iyaga mikrofoonka ku wareejiyo markoodana ay xusaan marweyn iyo mudanayaal anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dugsigooyga agoonta waalidka nabadiyadku laayay waxaan halkan uga mahad celinaynaa xukuumadda Itoobiya gaar ahaan xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo horkacayo aabaha horumarka nabadda iyo daryeelaha agoonta aabaha agoonta mudane Cabdi Maxamed Cumar iyo xukuumaddiisa uu hogaaminayo gaar ahaan haliyada noo hiiliyay ee liyu booliska noogana aaray cadowga mudanayaal iyo marweyn waxaan halkan ka codsanaynaa in halgankan aan midhihiisa cunayno uu ka hirgalo caalamka oo dhan marka beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa in haraaga ubbo naloo soo hor istaajiyo maxkamadda caalamiga ee Hague maadaama ay baabiyeen dhammaan xuquuqaanagii aasaasiga ahaa waad mahadsantihiin waxaan xaggan ooga taxsiyeenayaa dhammaan aabbayaashana ay dhintay nabadiyadka dawladda deegaanka ku sameeyeen iyo wixii ka geeriyoodaba waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yiraahdaa Misk Saacdi Awsiyaad anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dugsiga hooyga Jigjiga Abayaasho nabadiyadku laayay halkan waxaan ka salaamayaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan halkan waxaan ka salaamayaa aabbaanaga Cabdi Maxamed Cumar ee gaarka ah daryeelaha dadka iyo agoontaba aliyadan iyo booliska horumarkayga weeyaan waa hiilka guudo
howlahoo dhan kala hagaa waa halyeeniyo oo harsi aan aqoonoo hibe eebba siiyo heer sareeta joogoo hilinkiya dhibaatada allahayow ka nabadgeli waxaan kaloo ka soo jeedinayaa tiixaan ugu talagalay xasuuqii ubada ee xididadana gooyay xasuustiya dhibaatada xumaan noo horseedow waalidkaygii xaadnaa kii xabaasha geeye naftaydii xasirayo xumaalina dhammaanteed adigaa xambaartay xagga naarta weligeed xaabadeeda ahow oo xadhig lama sitaan noqo halkan waxaan igu leeyahay halyeeyadan iyo booliska ee hilyahooba noo garab taagan waalidkanagii nabadiidka ubo ay wax yeeleeyeen hal mar halkan intaa loo istaaga faataxaan looga maro waad mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم marka hore martida ka soo qayb gashay xafladda lagu maamuusay maalintii xuska hidheer oo ah xasuuqa ubada ay u geysatay dhammaan shacabka ku nool dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo aan halkan laga soo koobi karin dhammaan halkan waxa dacsi uga dirayaa ehladii iyo qaraabadii ay waxyeelayeen halkan waxaan ka soo jeedinayaa tixyaro ku saabsan kaygeena waa hodan waa guri barwaaqo gaas iyo shidaal bale geesiyada la yoogiya haddaan gaasas loo dirin shufta gaaro socotiya cadawga inaga gura kaygeena waa hodan gaajiya haraad male guluf iyo calaad male gawi weeye nabadeed kaygaygu waa hodan guga iyo xagaagan roobaa gantamaya ku gallada ilaahay girbe iyo fardaasima geel iyo adhibalihin waa gogol nabaditaan xusbigayga guulwade waa geed hadhweyno u gargaara shacabko danyartiisa garab qaban guddi baarlamaaniyo guddi fulinna way talin waa gogol nabaditaan kuwii aabbahay dilay hooyadayna garab tiri anna godobta iga gale waa la iiga aargude gudcur iyo caddaa jira ama gooya jiilaal waan ka gudubnay gaajadii ama gooya jiilaal waan ka gudubnay gaajadii jahligii la dabar jaray liyu boolisku hawaaro xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya hawaaro waxaan inaga codsanayaa hay'adda liyu booliska ee naftooda nahor ina kuwii geeriyooda ina faataxa u martaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin annagu haddaanu nahay agoonta dugsiga iga jigjiga waxaan anagu inigu abaalgudaynaa inaan wax barano hadhowna aan noqon jiilkiinigina bedeli lahaa bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Suweyr Axmed Ismaaciil waxaan ka socdaa dugsiga iga agoonta magaalada jigjiga anoo ku hadlay magacayga iyo magaca dugsiga iga agoonta waxaan halkan ka soo jeedinayaa tixyaro gaab oo ugu talagalay xasuuqii ay u geysatay deegaanka ubo duligii xumaayee dawarsanaya weligood maantay dumeeno dawarsi bay ku noolyihiin ina Cumar Cismaaniyo caydha duurka joogtiyo uba way carowdo cidhibtood la waaye cagta meesha saaraan cimrigooda dunyada ceelaha ku dhamaystaan baydhmarisijaha waalidkii inkiray ha ka waabanine naga weecadhaha xooggiyo lixaadkiyo askar leelyan baa jira dhalin ciidda jeceliyo liyu boolis baa jira annagu haddaanu nahay dugsiga hoyga agoonta dawladdu waxay noo tarto annagu marna ma ilaawan waxay dawladdu noo tarto annagu haddaanu nahay dugsiga hoyga agoonta waxbarasho caafimaad tayo leh iyo hoyba waana la siiyey annagu aabbaanu leenahay dawladdeena garab taagan markastana annagu waxaanu nahay ubixi deegaanka berri ka maalin kuwii deegaanka qabsan lahaa ama jiilka u soo korayay baanu nahay marna waxaana iloobi doon ciidamada liyu booliska ee xooggoodii iyo kartidoodii iyo naftoodiiba noo huray shacabka Soomaalidana waxaan ka codsanaa inay dawladda hiil iyo hooba la garab taagnaadaan waxaanu leenahay horumar iyo maamul suban iyo cadaalad aan kaga qayb qaadano aad bay u mahadsan yihiin بالحقيقة وواح قف كسو ديجان كصومالي إثيوبيا ودشاي ودريمي كرايو دايرتا وحي كهالياني دباتوين كنباديد كأبو جيستن ديجان كنا كما كوبنا إن أي والد تيران داير أميل ماير أما تشيل سوكا عيا سيدو كله قفكم مركو كدلو مرك قار حالة قار دمشق يا دانتا نرجع نول oo tarankiisu ku faanay intii laga gooyo la siidayo dhibaato ku xilma jirta ayaan leeyahay qof indhala
oo gacantii usha ku qaadanayay wadada uu ku socon lahaa laga gooyo dhibaato ku xun ma jirta ayaan leeyahay hooyo uur leh oo gacan laga gooyo ilmihiina laga soo rido dhibaato ku xun ma jirto waayo hooyo kasta waa jeceshahay ilmahay dhalaysa inay aragto isla markaana berika maalin anfaco diintiisa dalkiisa iyo deegaankiisa iyadaba ayna ku indhadoogsato intaasoo dhibaataa waxaa sameeyey xag jirka nololdiidka nabadiidka horumardiidka ee ubbo markastana haddaanan shacabka deegaanka waanu xusi doonnaa weligaanana waan ogaan doonnaa siday dhibaato nagu geysteen xukuumaddu deegaankuna weligeedna shacabka deegaanka ma ogolaan doonto in ay mar labaad hagardaamo soo gaadho waana wada ogsoonnahay marxaladii deegaanka uu soo maray ee uga soo gurmaday xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida iyo Itoobiya hogaamintiisa ugu sarreeyay ayaan ugu hambalyeynaa sidoo kale waxaan jeclahay shakhsiyaad ama dad waaweyn ama hooyooyin aabooyin dhalinyaro ayaguna sidoo kale la xaatireen waxyeeleeyeen ururka nabadiidka ubbo inaan iyagana markooda halkan soo istaajiyo oo indhihiina indhaha caalamka lagu arko dhibaatada nabadiidka ubbo ay u geysteen shacabka deegaanka haddaan koo iyo laba ama dhowr qof ka xuso waxaa ka mid ah mataan cabdiraxmaan cabdiqaadir maxamed nuur canab mukhtaar oo ay gacan ka gooyeen cabdiqaadir cumar oo waanu yeedhayna iyagana iyo dhammaan dadkii waxyeeleeyeen in lagu soo dhaweeyo ciddii aan soo kici karinna la soo caawiyo oo madriga la keenay ayaan idinka codsanaynaa waxaa nasiib darro ahaan lahayd haddayna jirin maanta cid dareemaysa inay urur noocaasa jiraan shakhsiyaad noocaasa jiraan isla markaana u halgama inay cidhibtiraan ciidamadayadu mar kasta waanu xusnaa dadka ayaa yiraahda mar kasta ciidanka new police dhahdaan koor new police nololba ma ayna jirin koor new police ma jirin hooyo si xor ah looga soo qaado baadiyaha in lagu keeno xarunta caafimaadka ama cusbitaalka koor new police ma ayna jirin in shacabka deegaanku u kala goosho meeshuu doono ayaga ayaan jecel markeenaan ku wareejiyo oo aan hadalkii ku sii dheeraanin bil xaqiiqatan mar kastana waan ka xunay dhibaatada